بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم maanta oo ay tahay bishu 9 bishii 11aad 2016 waxa aanu xafiiska diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta axsaabta qaranka ku qabanaynaa shir jaraa'id oo aanu kaga hadlayno arrintii xusbiga u cid khilaafkiisa ee muddada soo jiitamaysay inaannu halkan maanta kaga hadalno gunaanadkeedii waxaanu idiin sheegaynaa in halkan dacwadi noogu timid qaraarna aanu ka gaadhnay qaraarkiina sida sharcigu u oggolaanayo qayb ka midihii ay ka qaadatay rafcaan maxkamadda sarena ay qaraar ka soo saartay go-aankaasina uu yahay kaba dambays sidaa darteed waxa aanu ummadda u caddaynaynaa in uu soo gebagaboobay arrinkaasi tafaasiisheedana uu ina siin doono afhayeenka guddiga diiwaangelinta xasan macalin kusoo dhowow رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidaa idiin sheegay guddoomiyaha guddida waxaa la socotaan ama dadka reer Soomaaliland baa la socdaan inuu khilaaf muddo soo jiitamay ka jiray xisbiga cudurxiisa wixii nagala gudboon aanu ka soo gudanay oo ay ahayd in dacwadna loo keenay dacwadii abiil laga qaatay abiilkiina maxkamadda sare ay dhamaystirtay xukunka maxkamadda sare oo ahaa xukunka madambaysa oo meel loo dhaafaan lahayn maxaa markaa maanta nagala gudboon shirka la qabtay ee maanta xisbiga cud maxkamaddu go-aankeedu cid wax ka bedeli kartaa ma jirto walaa guddigan wax ka bedeli karin walaa iyagaan dib ugu noqon karin guddigan maxkamadda iyo qareennadiisa walaa dowladdu dhan isu tagtaan waxba ka bedeli karin waa go-aanka madambaysa meel loo dhaafo ma leh marka loo raaco qawaanintaanu dhiganay inagu xitaa faqrad ka mid a cid kale ma fasiri karto oo ma odhan karto si ay sidaa sida ay tuun baa loo qaadanaya go-aamadii ay gaadhay maxkamadda sare ee ku saabsanaa qaybtaa shirka xisbiga ucid waxay go-aamisay in xisbiga ucid uu qabsado shir aan caadi ahayn muddo 6 casho gudahooda shirkaa awooddiisa maxkamaddu waxay gacanta u gelisay hoggaanka xisbiga ucid si dhammaystiran bay ugu gelisay hoggaanka xisbigu inuu shirkaa maamulo go-aankiisa kama dambaystaa yeesho marjac u noqdo awooddiisii waxay gacanta u gelisay hoggaanka xisbiga waxay soo go-aamisay in labada garab ay laba guddoomin shana soo magacaabaan labadaa guddi waxay maxkamaddu go-aamisay inuu hoggaanku marjac u yahay marjac waa la garanaya macnaheeda waxa weeye wixii ay gaadhaan ee ay isla eegaan waxay ula tegayaan hoggaanka ayay ula tegayaan oo marjac ah halka ay ula noqonayaan guddiga diiwaangelin ururada maaha guddidaas 10kii meesha ay ula noqonayaan wixii ay gaadhaan iyo wax isku khilaafaan iyo wax isku diidaan cid ay ula noqonayaan waxa weeye hoggaanka xisbiga go-aankii maxkamadda iyadoo la raacayo waxay kaloo go-aamisay
go-aanka kama dambaystaa waxa la hoggaanka marka guddidaasi marjacna waa u tahay haddana go-aan wixii ay gaadheen oo dhan way bedeli kartaa wixii guddidaa qabanqaabadu ay gaadhay oo dhan way bedeli kartaa hoggaanku waa bedeli karaa way isagaa leeyahay go-aanka kama dambaysta isagaa laa leeyahay sidaa awgeed meel ay ka soo gasho guddiga diiwaangelintu ururada siyaasaddu haba yaraatee ma jirto maxkamadda afgoysay saasay ku dhammaysay hoggaankaasaa u ah marjac hoggaankaasaa u ah go-aanka kama dambaysta isagaa le halkaasaa ay annagu roolkaanu ku lahayn waxaa weeye ururada iyo xisbiyadu markay dee shirayaan ama ay hawlo wataan ay hawlahooda ku jiraan waxaanu ku leenahay inaanu eegno kormeero laakiin kan wuu ka duwanaa waa kiis gaara waa go-aan maxkamadeed go-aanka maxkamadeedka xaraf loo fulinayaa siduu yahay kaasaa la raacayaa kaasuunbaa ah sharci aad iyo aad buu mahadsantahay waxaan idiin sheegaya qoladii wariyaasha waxaa doonta weydiiyo diyaar baan su-aalihina haddaa ilaa caawa wadaane midun baan idinka codsanayaa su-aasha ay weydiisaan ee aan idinka jawaabo inaad qortaan oo soo saartaan waxaa dhacaa inta lagu xiijiyo maantaba su-aalo haddana inaanay hadhow warbaahintii aanay ku soo bixin oo saacad walba maalin walbana dhaca markaa su-aalaha ay weydiisaan dee soo daaye idinka weydiiyey aan idinka jawaabo aanu idinka jawaabno waxa weeye waxaan idinku yidhi oo aanu caddaynaya dadka reer somalilan maxkamaddu waxay awooddii shirweynaha aan caadigayn gacanta u gelisay hoggaanka kaa uu hoggaanku qabtuun baana sharciga u sax laba shirna ma jiro waa hal shir maxkamaddu hal shir bay go'aamisay halka shirna waxay gacanta u gelisay hoggaanka kaa uu hoggaanku qabtuun baana sax oo sharciga faysal iyo waa xubno uu ka mid yahay faysal guddoomiye u yahay guddoomiye ku-xigeenada ka mid a waxaa ka mid a xogeye ku-xigeenka yaa ka mid a markaa afhayeen hoggaankii xisbiga cali guri wuxuu leeyahay ku jiraan uguna shirkuna waa kuwa qabsaday markaa kana ma shay noqonay hoggaanka horta waxaa jiray shirweynihii ugu dambeeyey xisbiga ucid oo qabsaday hoggaan baa lagu doortay hoggaankii lagu doortay weeyaan ka sharciga kii lagu doortay shirweynihii ugu dambeeyey xisbiga ucud oo hoggaanada hadiyo goor wax deel shirweynayaasha lagu doortaa annagu mudane cali guri aad gaar xustay maxkamadduna qodobkiisa way nagu raacday annana waxaanu heshiiskiiba ku jiray heshiiskii ay wada galeen labada garab waxaase lagu ansixinayey shirkan oo ku dhammaystirmayey xilkiisu shirkan ay iminka qabsadeen kaasuu ku dhammaystirmayey guddoomiye ku-xigeenkiisu laakiin soo jeedin sharci ah yuu haystay soo jeedin sharcigu haystay lakin wuxuu ku dhammaystirmayey shirkan shirweynaha aan caadiga ahayn sidii maxkamaddu xukuntay afhayeen sidoo kale waxaa jirta eedeymo maalmihii dambeeyadii soo jeedinay jamaal cali xuseen idinkii maxkamadda sare oo uu sheegay in garabka uu hogaaminaya aad idinkii maxkamadda sare aad aydan cadaalad ka ahayn kiiskan labada dhinac u dhexeeya arrintaas maxaad ka leedahay qofka markuu leeyahay qofkaasi cadaalad iima uu samayn qodob inuu taabto weeye kaaga kaasaan igu samayn ee loo baahan yahay hebel cadaalad iima samayn wax ballaaran dee meel laga hego la garan maayo annagu kiiskayga waa la jebiyeyba marka shirweynaha laga hadlayo qaybtii shirweynaha waa la jebiyey oo maxkamaddaa jebisay qaabkee u dhigtaa baynu ku qasbannahay annaga iyaga cid waliba waana la jebiyey kiiskii aan anagu qaabkii shirweynaha anagu dhignay maxkamaddu dee way jebisay go-aan baana ka soo saartay iyadana u hadli maayo inay cadaalad anagu hadli maayo dee yaa ka jawaabi doona laakiin annagu waaba la jebiyeyba dee kii anagu ka gaadhnay maxkamaddaa jebisay gudoomiye waxaa jirta shirkii jira guddigaad qabatay waxaad ku sheegtay inaan la dambeeyey warar sheegaya in guddiga diiwaangelinta aad guddoomiyaha u tahay dhabarka la taabtay oo si kale loo bedelay labadii shir aad ku baaqayseen in la joojiyo labaduba way dhaceen maanta waxaad leedahay kii faysal baa saxa maxaa ciyaal isbedelay bismi illaahi raxmaan iraxiim horta aflagaadada adiga dhabar baa la taabtay nin dhalinyaro mata iyada lagaga jawaabi maayo waxaa jirtay in laba shir ay u cid ku dhawaaqeen
oo bishan 6deeda iyo 7deeda ay ahayd labadaanu anagu joojinaynay labadaasay ahaayeen wixii aanu joojinaynay waxay ahaayeen waxaanu ilaalinaynay qaraarkii maxkamadda sare ee ahaa laba qabanqaabo in la keeno garabka Faysal nooma keenin miidiyahana wixii aanu isweydaarsanay weydin ogeydeen wuu hoggaansamay wuu keenay wuxuu hoggaansamay inuu shirkii joojiyo garabka kale Jamaalla waxay u hoggaansameen inay kii 6daa joojiyaan iyagoo annaga aanu mahad uga hayno labada shir ay joojiyeenba markii uu soo dhammaaday qabanqaabadii ee naloo keenay aanu halkan labadiiba ugu yeedhnay waxaanu u sheegnay in ay hawshu imika wixii ka bilaabata xusbigu leeyahay waxa aanu qaraarka iyagii hore aanu soo saaray lagu buriyey uu ahaa heshiiska ayuu emphasis garaynayay maxkamadduna waxay raacday xeerka xusbiga ee sida loo qabto shirweyne aan caadi ahayn ayay raacday amarna ku soo rogtay qodobka xusbiga ee shirweynaha sida loo qabto sida uu sharxayo ah in orgooyinkii shirweynihii ugu dambeeyey oo Jamaalba aanu joogin beriga ay noqdaan xubnaha imanaya xubnahaas annaga nooma diiwaan gashana waxyaabaha noo diiwaan gashan waxa weeye wixii ka soo baxa shirweynayaasha ee ah golaha dhexe golaha fulinta liisaskooda resolutionkooda barnaamijkooda siyaasiga iyo dastuurkooda intaasaan odhanahaynaa xeer ilaalinta guud ay haysaa laakiin shirweynaha dadka ka soo qayb galay annaga nooma diiwaan gashana markaa mama garanayno inay yihiin kuwii saxda ahaa iyo inay yihiin kuwii aan saxda ahayn laakiin waxaa garanaya hoggaanka xisbiga ayay maxkamaddu waajibaadkaa siisay isaga ayaa sidaa ku fulinayay annagu halkaasaa roolka iyagu yahay tirsaa uu gudoomiyuu sheegay waxaanuna ku joojinay maanaan hayn shantii qabanqaabada ahaa shanta Faysal baa maqnaa wuu keenay 10kii baanu yeedhnay waxaanu ku israaco kala hawshiina halkan iskaga daray qodobkaasaanu ku joojinay qodobkiina meesha uu ka baxay anagu ku joojinay markii ay 10kii israaceen ee aanu isku daray xafiiskooda taga way isdiideen markii isdiideen Faysal marjac ahaa oo gudoomiyaha hoggaanka xisbiga marjac ahaa hawshii la wareegay qoraal baan noo soo qoray go'aamadu markaa gaadhay inuu shirkii qabanayo hawshiina wadayo saasana hawshu ku socoto aad buu mahadsantahay